waa gartay dhawaan wada la sameysay Somaliland adiga iyo wasiirka sidoo warbaahinta uu ka sheegay arintaas ma naga briefing naga siin kartaa arintaas marar horena waa ka jawaabay wada hadal baa la sameysay hadii ujeedadu tahay wada hadal rasmi ah wada hadal rasmi ah oo aniga iyo wasiirka arrimaha dibadda Somaliland madaxmari ma jiro wada hadal rasmi ah macnaheedu waxa weeye marka lagu soo wakiisho marka lagu mandate gareeyo oo dawladda admatalaysid maamulka admatalaysid ay ku yiraahdaan arintaas soo qabo lagu soo diro marka arintaas oo anigana la ii diray ma jirin wasiirkan uu ii sheegay in loo soo diray ma jirin waxa dhacay oo kaliya aniga iyo wasiirku inaanu ku kulanay hotel yiraahdo Sheraton anagoo saaxiibo kale oo Soomaaliya la socona marka sida dhaqanka fiican oo bini'aadamka uu yahay Soomaalinimaduna tahay aniga wasiirku waa salaam waa marxabeynay waa hagareynay waa wada fariisanay waa iska sheekaysanay sida Soomaali kale oo sheekaysano dadna waxaan is xusuusinay oo isaguna uu si maartay niyada u muujiyay inay fiican tahay in Soomaalinimada walaaga nabadgelyada la ilaaliyo inaan dhiig Soomaaliyeed macna ku daadan inaan maartay khilaafka jiraan safgari waaga jiraan waxa uu kala duwan yahay aan la sii fogeynin waxyaabahaas baan ka sheekaysanay si caadi ah oo shaar u sheekaysanay marka ma qantaas waxaad u bixinaysaan wada hadal u bixinaysaan waa sida hadal waad kulanteen waa kulanay laakiin ma ahayn kulan rasmi ah waxa jira dawladuhu markay kulan kala sheegay waa mid ka rasmiga ah